ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين. maanta waxaa idin wada walaalihiin dhammaantiin waan islaamaya insha allah. cajiradayga markay soo gaadhaan insha allah u sheer garay walaalihiina kale ka faa'iidaystaan insha allah. acashaabta amba akhtarka amba dhirta faa'iido badan ayay u leedahay qofka bini'aadanka. marka insha allah ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa in uu caafimaad inaga wada siiyo dhammaantiinba insha allah, maadaama culimo qortay ay ka sheekeynayaan insha allah. kuwii ka faa'iidaystay ilaahay naga wada dhiga dhammaantiin. maanta waxaa idii wada insha allah inaan ka hadlo midhaqiraha amba caloosha xibnaha waxa weeyaan kansarka ku dhaca in uu ka caawinayo amba u faa'iido leeyahay aljarjiirka. saladhka jarjiirka leeyahay aad buu faa'iido u leeyahay, marka ha laga faa'iidaysto. raggana wuu fiican yahay oo wuxuu siyaadinayaa isagana shahawaadka ayuu siyaadinayaa. marka waxa weeyaan kansarka midhaqiraha ku dhaca ayuu ka kelin garanayaa amba uu ka safeynayaa. marka asxaabay waxaad cuni kartiin isaga oo salad ahaana amba salaad ahaana ayaad cuni kartiin. saladhka ayaad cuni kartiin, haddii kale casiir ayaad ka sameysanaysaa, sharaab ayaad ka sameysanaysaa. halkan waxaa yaala isbinaashi iyo waxaa ii yaala iyo jarjiirka. jarjiirku markaa waa noocaasi, waa inuu saa u dheeraadaa. geedkaas ayaa aljarjiir la yidhaahdaa carabiga. waa salad oo kale aad buu fiican, wax badan ayuu faa'iido u leeyahay. laakiin maanta waxaan soo qaadanaynaa insha allah kulli faa'iidooyinkiisa waan ka soo hadlay maanta. laakiin insha allah waxaan soo qaadanayaa inuu kansarka midhaqiraha uu u fiican yahay. saradaanka ku dhaca midhaqiraha ayuu u fiican yahay insha allah. walaalayaal markaa insha allah kansarka ku dhacaya midhaqiraha ayuu u fiican yahay. midhaqiraha alqawloon ayaa la yidhahdaa carabiga insha allah. sarataan qawloon ayuu u fiican yahay, uu caawinayaa qofka haddii kaga dhaco midhaqiraha. marka insha allah ilaahay subxaana wa tacaala caafimaad ha inagu siiyo, ilaahay subxaana wa tacaala naga badbaadiyo. kansarka waa masiibo weeyaan, ilaahay baan ka hoosgalnay. waxaa kaloo faa'iido u leeyahay, wuxuu hagaajiyaa maxaa la yidhahdaa riixda caloosha amba naqaska amba hawada caloosha kasoo baxaysa ayuu faa'iido u leeyahay. waxaa kale uu faa'iido u leeyahay, wuxuu ku hagaajinayaa naqaska iyo hawada caloosha ku jirta. haddii hawa calooshaada ku jirto ayuu hagaajinayaa, faa'iido u leeyahay. waxaa kale uu kaa kaxaynayaa amba kaa awood kuu siinayaa, uu kaa kaxaynayaa subaga jirka ku jira. subaga jirka ku jira ayuu kaxaynayaa. waxaa kaloo kaa kaxaynayaa balqamka laabta ku yaala. maxaa la yidhahdaa laabta ku yaala balqamka, soomaali kale balqamu bay yidhahdaan. waxaa kaloo faa'iido u leeyahay beerka ayuu faa'iido u leeyahay. waxaa kaloo faa'iido u leeyahay beer taxliisha ayuu faa'iido u leeyahay. waxaa kaloo faa'iido u leeyahay uu dhagaxaanta ayuu soo daadiyaa haddii ay ku jiraan keliyaha amba beerkaba. dhagaxaanta ayuu soo daadiyaa, almuhiim dhagaxaanta ayuu kasoo daadiyaa beerka ku jira ayuu ka u faa'iideynayaa. marka ha laga faa'iidaysto. waxaa kale uu kaxayaa oo riixda waxa weeyaan dadka meelaha timaha ay ku leeyihiin oo dhan jirka. si mar hore ayaan ka hadlay qofka markay shunta tiraada kule shun, markaa qofka haddii maad aragtay timo uu leeyahay wuu fiican yahay hadduu marsado riixda ayuu ka baabiinaya. marka maasha allah faa'iido badan buu leeyahay. waxaa kale uu faa'iido u leeyahay isaga oo inta aad ridqatid oo jilcisid, haddaad malab cadaana ku ridqdid amba aad ku darsatid, malab cadaana aad ku darsatid, wuxuu kuu sameynayaa, uu kuu siyaadinayaa amba xarakaad u keenayaa. ragga ayuu awood siinayaa, ragga awoodooda ayuu kicinayaa. maasha allah aad buu u fiican yahay awoodooda. waxaa kaloo u fiican yahay dhiigga ayuu maxaa la kelin gareeyaa. waxaa kaloo u fiican yahay xanuuno badan. waxaa kaloo faa'iido u leeyahay dhiigga afka ka yimaada amba ilkaha markay ku dheegayaan oo kale bacteria ku jirto ayuu u fiican yahay. marka inagu maanta waxaan kasoo qaadaynaa wiqaayatu min sarataan qowloon. waxaan kasoo qaadanaynaa maxaa la kansarka
ku dhaca mindhiciraha ayaan kasoo qaadanaynaa in uu caawinayo amba uu dawo u yahay insha allah. waanu radqanaynaa, waa idi tusay, waa kaasi dhaadheer aljarjiir geedkaasa la yidhahdaa dhaadheer. kan kale waa isbinaashi, kan kale waa isbinaashi, laakiin innaga waxaan u baahannahay ka dhaadheer. wakaasi wakaa geedka dhaadheer aljarjiir baa la yidhaha carabiga. maasha allah aad baa loo ammaanay. timaha qudhadiisa uu fiican yahay, uu bixiyaa oo waa kii maxaa la yidhaahdaa waa xadiis daciifaan malaynaya wallahu aclam. amba maxaa la yidhahdaa culamaa qortay kulley waxa ay leeyihiin haddii aan dumarka ku boorin lahayn saritooda hoosteeda ku beerta ayaan odhan lahaa si usoo goostaan ay u cunaan markaste. marka insha allah waa geed aada u wanaagsan. soomaaliduna aad ba ugu fiican tahay in ay beertaan, aad buu faa'iidadeedu leeyahay. hala beerto, waxaa dhulka carabtoon baa laga helaa, laakiin mar baa la sheegay waa la beeray, laakiin weli lagama arko dhulkii afrika. marka insha allah laga faa'iidaysto geedkan. waa geed aada u fiican, anfaca badan ayuu leeyahay, faa'iidooyin badan, waa mufiid weeyaan. ha laga faa'iidaysto, timuu saarayaa, jirka uu fiican yahay maasha allah. marka maanta insha allah mindhiciraha waxa weeyaan kansarka ku dhaca ayuu kaa caawinayaa. marka insha allah asxaabi aan ka faa'iidaysano insha allah. waxa weeyaan xanuunada way iska badan yihiin. waxa weeyaan ilaahay subxaana wataala qof walba horta wuxuu ugu qadaray iyo wixii uu qoray unbaa ku dhaca. laakiin waa maxay inaan wax walba iska sii ilaashano oon caafimaadkeena ilaalino waa muhiim. alwiqaaya khayru min alcilaaj ayaa la yidhaha moogta. waa inaa qofku marka hore uu iska ilaaliyaa, waxa weeyaan uu naftiisan ilaaliyaa. waxaa wanaagsan in aad naftaada ilaalisid, caafimaadkaaga ilaalisid. ilaahay subxaana watacaala qofkaas uu jecelyahay qofku inuu naftiisa keergareeyo, yacaanoona aad buu ugu fiican tahay. marka insha allah naftaada inaad ka warhaysid ilaahay subxaana watacaala ku geliyay, isagana waa ku weydiin doonaa nadaafadiisa, caafimaadkaaga ilaahay subxaana wataala kula xisaabtami doona. marka waa maxay dadka qaarkood xanuunaha kusoo booda, marka tay alla uu ku kaxaynayo waa halkeega ilaahay baa u qadaray. laakiin marka hore in dhakhtarkaa tagtid, caafimaadkaaga ogaatid, wixii dhibaato ku haya adigoo cashaabtan aad u aaminsanahay isku daweynaya insha allah. marka maanta waxaan rabaa in aan inaga caawiyo cabitaan waxa weeyaan wiqaayo ah min sarataan alqowloon. cabitaan inaad ka samaysatiin geedka aljarjiir inaad cabitaan ka samaysatiin oo waxa weeyaan aad cabtiin. koob biyo ayaad ku darsanaysaa. aniga marmar waxaan ku darsanaa caano iyo muus. caanihi muus baan isku dhex daraa, laakiin waxa aan maadaama oo dawo aad u rabtid biyo iyo waxaad isku darsanaysaa iyo geedka aljarjiirka ayaad isku ridqaysaa. markaad ridid koob sharaabaad ka dhiganaysaa, casiir ahaan cabitaan ahaan baad ka dhiganaysaa, markaasaad cabisaa. marka insha allah asxaabtahay ka faa'iidaysta. waxa weeyaan insha allah caafimaadku waa qaali weeyaan, waxa qura ee lagu socdo ee adduunyada lagu dhex joogo weeyaan. marka qofku waxa ugu wanaagsan caafimaadkiisa ilaaliya insha allah. cajirdeed ugu dheerayn maayo insha allah, laakiin walaalihiina kale u sheergareeya, gaarsiiya insha allah. dad waxaa jira u dhibaataysan amba ku xanuunsanay dhulkaas, walaalihiina kale gaarsiiya, ajar baad ka helaysiin ilaahay subxaana watacaala agtiisa. layga ii saara insha allah, subscribe-ka iga iloobina. aad baa idiin salaamaya dhammaantiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.